wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Salebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaa tababar uga furay magaalada Burco in ka badan 40 arday kuwaasi oo ah kalkaaliyaal caafimaad oo ka kala socday gobolada Awdal iyo Saaxil. tababarkan ayaa waxa uu socon doonaa kalkaaliyaashan caafimaad muddo 9 bilood ah waxaana ay ku qaadan doonaan maxadka tababarka caafimaadka Burco oo ay ka aflixeen in ka badan 200 oo kalkaaliyaal caafimaad ah. maxadkani ayaa waxa haatan muddo laga joogo 7 sanadood hirgeliyay shirkadda Daabshiil waxaana ugu horeyntii kulankani ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Salebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye barasaab ku-xigeenka gobolka Saaxil isuduwaha caafimaadka gobolka Saaxil agaasimaha maxadka tababarka caafimaadka Burco iyo saraakiil kale waxaana hadaladoodii kamid ahaa wasaaradda caafimaadka waxa ka go'an kor u qaadista iyo tayeynta adeegyada caafimaad ee bulshadeena iyada oo aynu ognahay sida la wada sheegay inay aad u hooseyso baahideena caafimaadna ay aad u badan tahay barnaamijkan maanta aynu fadhino in la furo wuxuu ka mid yahay dadaalka wasaaraddu ugu jirto kor u qaadista adeegyada caafimaad guud ahaan gaar ahaana yaraynta dhimashada hooyada iyo ilmaha waxaan doonayaa inaan halkan ka sheego talaalkii poliyadu wuu socdaa maalmo yar baana ka dhiman waxaan shacabka reer Soomaaliland dhammaan yar iyo weyn ku boorinayaa in ay ka faa'iideystaan maalmaha haray oo cidii aan talaalka qaadanay ay talaalka qaadato caafimaadka asaasiga in aqoonta aad baranaysaan waxa weeyaan maanta ayaa qaateen furihii caafimaadka ama barashada caafimaadka in mashruucan essential package system ka loo qaato gobolka Saaxil taasoo maanta ah mid midho dhal ah horumarkiisana laga dareemi karo gobolka Saaxil waxa maxay ahayd toolay isla kaashaday markaa wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda la yiraahdo soo dooranay inaan ahayn dad magaalo ka yimaada ee uu yahay dad deegaanka jooga maxadka haday tahay gobolka iyo haday tahay dadka wax baranaya intaba waa fursad aad u qaaliya tababarkan ay qaadanayaan xubnahani ka kala socday tuulooyinka iyo degmooyinka gobolada Awdal iyo Saaxil ayaa dib ugu laaban doona deegaanadii ay ka yimaadeen marka ay dhameysteen tababarkani si ay uga howlgalaan qorshahan ayaa qayb ka qorshaha wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland kor ugu qaadayso sidii loo badbaadin lahaa hooyada iyo dhallaanka deegaanada fogfog ee suquuqulka ay ku yihiin caafimaadku. waa Absaaq Faar Cabdilaahi telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland.